madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta Muqdisho ugu soo xiray arday dhameysatay arday dhiganaysay dugsiga hoose iyo dhexe oo magaalada Muqdisho muddooyinkii dambe ugu saxanayay imtixaanaadka. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinta warkan ku dhameystiray. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kormeeray gelinkii dambe ee maanta imtixaanaadka dugsiyada hoose dhexe ee dalka. madaxweynaha oo uu helinayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa tagay dugsiga hoose dhexe sare ee Wilwaal halkaasi oo uu ka socday imtixaanka dugsiyada hoose dhexe. madaxweyne Farmaajo ayaa waqti kooban la qaatay ardayda dugsiga Wilwaal kuwaas oo u fadhiyay imtixaanka hoose dhexe wuxuuna kula dardaarmay inay rumeeyaan rajada qoyskooda iyo midda qarankooduba ay ka sugayaan. madaxweynaha oo la hadlay ardayda dugsiga Wilwaal ayaa waxa uu yiri waxaan ku faraxsanahay maanta inaan idin soo booqdo maalintii ugu dambeysay oo imtixaankii ugu dambeeyay aad qaadanaysaan Soomaa. waxaan idin rajaynayaa imtixaanka qof walba halkan fadhiya inuu keeno bundada ugu fiican. waxbarashadu waa qofka noloshiisa, waa indhaha qofka, waa iftiinka bini'aadanka, waa horumarka qofka bini'aadanka ah. waa fahamteen Soomaa? waxbarasho qof aan waxbarasho lahayn horumarkiisu waa kooban yahay. marka waxaan rajaynayaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo iskuul sare inaad tagtaan oo aad baastaan oo bunta fiican keentaan. iskuul sarena aad jaamacada ka aadaan. jaamacadaha markaa dhamaysaanna aad tihiin mustaqbalka dalkan uu leeyahay. waxaa yeelay mustaqbalka dalkan waa idinka. shaqooyin wanaagsan qofkii dawlad u shaqeeya, qofkii private u shaqeeya, qof walba inuu leeyahay door cayiman oo wanaagsan uu nolosha shacabka, nolosha dalka iyo horumarka dalka wax ugu kordhinayo. annagana muhiimad weyn ayay noo tahay, muhiimad weyn ayay noo leedahay, ahmiyad weyn ayay noo leedahay inaan idin siino waxbarasho tayo leh. maxaa yeelay waxbarashadu waxa weeye waa aasaaska qofka bini'aadanka. marka hooyo walbaba iyo aabbo walbaba inaysan marna ka walwalin waxbarashada carruurtooda. insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo qof walba oo Soomaaliya oo dhalinyaro ah oo maxaan ku raahdaa da'diina oo kala waa inuu iskool aado, waa inuu iskool u kalaho, waa inuu qalin buuq qaato. booqashada uu maanta ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dugsiyada hoose dhexe ee dalka ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo la isu diyaarinayo imtixaanka dugsiyada sare ee dalka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre maanta waxa uu shir gudoomiyay kulan looga hadlayay arrimaha ciidanka iyo howlgallada socda. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa shirkaas isugu yeeray taliska ciidanka xoogga dalka, wasaaradaha gaashaandhigga iyo tan maaliyadda ee xukuumadda Xasan Cali Kheyre. waxaana inta badan looga hadlayay dib u habeynta ciidamada iyo howlgallada socda sida lagu daabacay wakaaladda wararka u faafisa dowladda Soomaaliya ee Soona. waxaa lagu sheegay warkan Soona ay daabacday in si aad ah loogu lafaguray diiwaangelinta socota ee ciidamada iyagu ka dhiman liiska ay sheegtay xukuumadda Xasan Cali Kheyre in la dhammaystirayo askarta aanan diiwaan gashaneen ee ka tirsan ciidamada xoogga dalka. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in uu faray wasaaradaha maaliyadda iyo gaashaandhigga in ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhammaystiri lahaa diiwaangelinta askarta ciidamada xoogga dalka. hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliyana waxa uu hakiyay canshuurta laga qaado dadka gobolka Banaadir ku dhaqan. waana warqadii labaad oo hantidhowrka guud ee qaranka ka soo baxda isla markaana ku qotanta arrimaha maaliyadda ee maamulka gobolka Banaadir. wariyahayaga Cali Cilmi Salaad haynoo dhameystira warkan. wareegta ka soo baxday xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka ayaa si gumil gaar ah loogu joojiyay canshuurka qaadistii dawladda hoose ee Xamar. qoraal ka soo baxay xafiiska hantidhowraha ayaa lagu yiri waxaan dhammaan waxyaha canshuuraha ee dawladda hoose ee Muqdisho lagu wargelinayaa inuu socdo baarista dastuuriga ah ee sanadlaha ah oo sameeyo xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka. qoraalkan hantidhowraha ayaa sidoo kale lagu yiri haddaba xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka waxa uu idin farayaa arrimo la xiriira baaristan awgeed laga bilaabo taariikhda warqadan ku xusan in
kumeel gaar ah loo joojiyo dhammaan canshuur qaadista dowladda hoose ee muqdisho sidaa darteed waxaan idinka rajaynayaa wada shaqayn hufan si loo horumariyo daahfurnaanta isla xisaabtanka dowlad wanaagga iyo sarreynta sharciga ayaa lagu yiri isla warqadaasi waxaa xusid mudan inay shalay ahayd markii hantidhowraha guud ee qaranka uu furay bangiyada in si kumeel gaar ah loo joojiyo lacag kala bixista xisaabaadka dowladda hoose ee xamar xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa dood adag waxay ka yeesheen sharci loo sameynayo ganacsiga soomaaliya yunis duraan cali ayaa warbixinta warkan ku eegaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxay kulankoodii caadiga ahaa ku yeesheen xaruntooda muqdisho ka oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kooramka xildhibaanada maanta ayaa waxa uu ku furmay 148 mudane waxaana ay kulankoodii ay yeesheen maanta ay uga doodeen ajendaha hindisha sharciyeedka shirkadaha ganacsiga sidoo kale kulanka xildhibaanada maanta waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in hindisha sharciyeedkan horey loogu qeybiyay xildhibaanada isla markaana uu marayo maanta arintiisii labaad xildhibaan Daahir Maxamuud Muuse oo kamid guddiga ganacsiga iyo warshadaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyay hindisaha markii labaad ay baarlamaanka hor keeneen wuxuuna sheegay in akhriska saddexaad ee sharcigan ay dib ugu soo celin doonaan xildhibaanada isbuuca soo socda si loo ansixiyo waxaan aad ugu faraxsanahay maantay baarlamaanka tobnaad inaan maantay soo bandhignay sharciga shirkadaha company lowgi oo uu marayo akhriskii labaad ee guddiga ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo warshaduhu ay waqti badan geliyeen buuggaas oo Soomaaliya muhiim u ahaa ganacsigeeda iyo horumarkeedu maantay oo baarlamaanka Soomaaliya oo doodii labaad ka galay su'aalo badan la isku weydiiyay annaguna aan notice-kii iyo systemkii aan qaadanay akhrintii saddexaadna waan diyaar garoobayna haddii rabin inaan ku keenno buuca soo socda waxaan leeyahay Soomaaliya waa markii ugu horeysay oo company loo sameeyo ilaa dawladdii dhexe ISM Soomaaliya marka waxaan aad ugu faraxsanahay inay maanta leedahay dawladda Soomaaliya company law ama sharciga shirkadaha oo isku halayn karto oo xeerkii shirkadaha horumarin lahaa ganacsigooda iyo horumarkooda sidoo kale caqabadaha iyo dhibaatada ka yimaadaan ka xadidi lahaa mar labaad waxaan leeyahay Soomaaliya danaynaysa Soomaaliya maanta waxay leedahay company law la isku halayn karo xildhibaan cilmi maxamuud nuur oo kamid ah xildhibaanada meelo kamid ah sharcigan ka keenay dhaliilo ayaa waxa uu sheegay in shirkadaha ajnabiga ah marka ay yimaadaan dalka in uusan qiixin sharcigan habka ay dalka u soo galayaan meesha shirkadaha ajnabiga qaabka ay ku imaanayaan sharcigan ma qeexna shirkadaha ajnabiga markay dal imaanayaan horta waxaa koow shuruud ah in qofka ama shirkada ka diiwaan gelinaya dalka inuu horta dalka degan yahay deganaansho inuu haysto oo asoon deganaansho haysan waa inuu deganaansho qaataa hadduuba rabo kadaasi ay soo degto dadka maamulkeeda iyo wadaaya diiwaan gelinaya waa inay deganaansho haystaan haddayse shirkad kale oo Soomaaliyeed aysan inta ka gadato aysan saa ku soo gelayn shirkadaha hadda qodobka 12aad wasaaradda ganacsiga hadda rabshad inaa furato qodobka 12aad shuruudaheeda waa marisaa laakiin qodobka 12aad wax aan ku qornayn iyo haddana sharci uga dhigtaa wasaaradda markay ganacsiga ku siiso shati waxaa ku qoran 12 bilood kadib inaa haddana cusboonaysiin u soo laabato oo sanad walba aad ku soo laabato ama wasaaradda arrimaha gudaha ha ahaato ama wasaaradda ganacsiga ha ahaato shatiyada ay bixiyaan ama shahaadooyinka ay bixiyaan oo dhan kulligood waxaa ku qoran hal sano xildhibaan ibi ayaa isagana sharcigan waxa uu ka keenay su'aalo meelaha qaar waxaana ka mid ah beejka shanaad qodobka afraad qodobka shanaad qodobka lixaad qodobka toddobaad qodobka sagaalaad qodobka 98aad intaas kuma aha mulaaxad inaan ka bixiyo mulaaxadahaas aan bixinayo waxay u badan yihiin inta badan wax u baahan in dib loogu noqdo oo la saxo shirkadaha hadda example inaan ka bixiyo lixaad oo kaleeto shirkad dadweyne waxaa ku qoran saamileega inay 50 ay ahaadaan xubnaha shirkadaha in ka badan yihiin 50 wax diidaa ma jiro in shirkada 10 saamileega noqoto wax diidaa ma jiro meel dastuurkay kaga qoran tahay mala 10 ruux oo 2 milyan 3 milyan leh shirkadu waa sameyn karaan saamigoodan waa yeelan karaan marka wax sabab looga dhigo haddii noo sheegaan guddiga هذا الشيء جاي واي شركات وحى أساسا قف أما كبدا في شروع الإسلام كي قبتنا واحد صوب قرينا يمشي حتى هذا سديدي تبصروا ذاتك عن الإسلام كهين أنا الإسلام كحوق بقى قف كينو كوب على قاي شان تبصروا شان تبصروا وقناع سكو سمين كرسامين وكو يلان كرا بقي كانتر وكو فرن كرا قف كبصر كشيء تبصروا كوب على قاي gobolka Shabeellaha Hoose markan haddii aynu eegnana ku dhawaad 200 oo gaadiidka xamuulka ayaa la soo warinayaa inay ku xaniban yihiin wadooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose
axmed abubakar sabriye waryaha idaacadda kulmiye ee gobolkaasi ayaa warkan inoo soo diray. in ka badan 150 gaari oo nuuca xamuulka qaada ah ayaa ku xayiran wadada dheer ee xiriirisa degmooyinka Afgooye iyo sidoo kale Wallabeen oo ka wada tirsan gobolkan Shabeellaha Hoose. gawaaridan oo ka yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa u raran qaybo ka mid ah dalka, gaar ahaan gobolada Baay iyo Bakool iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee dalka, waxaana xayiraadooda ay timid kadib markii muddooyinkan dambe ay soo bateen isbaarooyinka la soo dhigto halkaasi. qaar ka mid ah gawaaridan xamuulka ayaa ku kala xayiran deegaanada Beledoogle iyo sidoo kale Leego, waxaana darawalada gawaaridaas qaarkood oo aan la xiriiray ay sheegeen in lagu soo dalacay lacago xad dhaaf ah oo aysan awoodin in ay markaasi bixiyaan. waxaana darawalada qaarkood oo aan la hadlay isla markaana ah kuwa wata gaadiidkan xayiran ay sheegeen in aysan aqoonin isbaaradan cidda ay u taalo iyo sidoo kale ciidamada ay u taalo cidda ay ka amar qaataan, waxaana ay sheegeen in lacagta ay bixiyaan ilaa iyo hadda aysan aqoonin halka ay ku dhacayso. waxa ay sidoo kale xaqiijiyeen in markii hore lacagta ay bixin jireen ay dhib ku qabeen, balse haatan lagu soo dalacay in ka badan tii ay horey u bixin jireen. axmed abubakar sabriye, idaacadda kulmiye, Afgooye. halkan waa KNN, waxaad maqlaysaan warka habeen 8:8 megahertz ayuu idinkaga imanayaa. markana qodobka dibadda. saraakiisha ammaanka ee dalka Burkina Faso waxa ay soo sheegayaan in ugu yaraan 5 ruux oo uu ka mid yahay baadari in lagu dilay weerar lagu qaaday kaniisad ku taala waqooyiga dalkaasi Burkina Faso. waxaa la sheegayaa in dadka weerarka geystay ay ahaayeen dabley hubaysan oo saarnaa mooto, waxa ayna bilooyinkii lasoo dhaafay marka la eego dalka Burkina Faso hareeyay weeraro ay geystaan maleeshiyaad, halkaasi oo iyagu inta badan booliisku ay sheegaan in ay baaritaan ku sameynayaan howlgal lagu dhammaystirayo ama lagu ciribtirayo kooxdaasina ay sheegeen in maalmaha soo aadan la bilaabi doono. dalka Burkina Faso ayaa ka mid ah dalalka dagaalka kula jira maleeshiyaadka dagaalka ka wada gobolka Saaxil.